السلام عليكم بريان waxaa zaid la isoo weydiiyaa Ibrahim inaan kala tagnay haday lambar noqoto telefoon oo wicitaan iyo haday noqoto message oo yaani comment ahaan la isoo qoraayo Ibrahim waan kala tagnay ani isaga calafkeena intaas ku ekaa halkan cunugu calafkeena ku ekaa waan kala tagnay alxamdulillah waliba aniga umul ayaan kala tagnay ani isaga oo saas ku kala baxnay alxamdulillah binti aan wada joognay alxamdulillah hadaan kala tagnay waxaan leeyahay waa alxamdulillah wiil walaalkayna adeerkay waa mar kastaba waan kala tagnay Ibrahim mar dambe hal isoo weydiinin inta maqalkayga muuqaalkayga taqaano ima soo weydiin karaan ninkii rabo haraadsada asaga magaalada dhagaxleed dadka oo yaqaan wixii joogo dadka maqana wixii garanay ha weydiistaan asaga aniga mar dambe la isoo weydiin fadlan yaana la isoo wicinayo Ibrahim la weydiinayo ani Ibrahim waan kala tagnay horeyba ani isaga isku ma aan tolnayn aniga kaligeena la iima gudin ani asaga saasa dogaanaysan asxaabay waan salaamay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي هلك أد نقد داونيسين وبلعسن ميديا هدي أن نقع عصبتها وحن كلنا يسودو سبسكرايب نوصار لايك شير كومنتي وإذا كده مهد علنا داوشة المقال كاني المقال كان وحن وقاعد للدونا هدو إلهي إدمو وحمانتا برتا أي كل هذا هاي تيك توكا استر كورلباح وكم ده قبلها عنك برها بالشدة قارهان ديجان قحريها قحنتيجي داب قارهان مقالة دجحلي gabadhna ayaa caan ku ahayd in ay baraha bulshada soo dhigta ayadii isaygeeda oo muuqaalo iska soo duubaan oo lamaana ah run ahaantii gabadhani waxay joogtaa magaalada dhagaxley ee xirada qaxoontiga ee Dadaab maanta ayayna shaacisay si rasmi ah u shaacisay in ay kala tageen saygeedii oo lagu magacaabi jiray Ibrahim kaasi oo la soo muuqan jiray baraha bulshada gaar ahaan TikTok-ga saaxiibayaal waxaan halkan xogta idin wadaagaynaa ku saabsan in ay kala tageen maxaa sababay kala tagga ayaad muuqaalkan kaga dhaahan doontaan ilaahay haduu idmo ku soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad muuqaalkanina si share gareeya biidnillah run ahaantii gabadhan waxaa loogu magacaabaa Esther Korlibaax waxay caan ka tahay baraha bulshada gaar ahaan TikTok-ga muuqaalo badan oo ay ayada iyo saygeeda ay isla soo dhigeen ayaa jira oo baraha bulshada gaar ahaan TikTok-ga aad ku aragteen inta badanba sababta ka dambaysa inay kala tagaan iyo dhamaan faahfaahintaasi ma aysan sheegin balse dad oo familiga ah oo aan la xiriir waxa ay sheegeen in ay arrimo qoys mise arrimo qoyska wiilka dhankeeda ah ay dhibaato ay ku hayeen gabadhan sida ay sheegtaba waxayna ku kala tageen wiilkaasi dartiisa in gabadha ninka saygeeda Ibrahim lagu magacaabay aad u jeceshahay ayna diyaar u tahay in ay nolosha la sii qaybsato balse ay kala fogeeyeen qoyska wiilka oo aan u rabin maadaama ay leeyihiin wiilka waa da'yar yahay gabadhana way ka da'weyn tahay markii loo eego dhanka da'da saaxiibayaal ayada nafteeda sida aad ku daawateenba muuqaalka hordhaca oo idin shidnay imsa aad daawateenba waxay kaga hadlaysaa dad fara badan ayaa baraha bulshada gaar ahaan TikTok waxay soo dhigeen in ay maalmahan su'aalo ka dhan ayada ay weydiin jireen ay dhahay jireen xaguu ku dambeeyay Ibrahim ay su'aashaasi kaga jawaabtay horta gabadhani sida ay hore u sheegtay waxay dhihi jirtay in ay baraha bulshada aysan soo dhigeen ayadii saygeeda ay noloshoodana ay gaar noqoto oo aysan ku soo bandhigin baraha bulshada run ahaantii baraha bulshada dhibaatooyinka uu leeyahay waxaa ka mid ah in lamaanayaasha markay muuqaalo iska soo duubaan oo ay baraha bulshada jilniino iyo ruwaayado ay soo sameeyaan kadib burbur qoys ayaa ka dhasha sida aan wada ognahay ba dhamaan baraha bulshada dhibaatadaasna caqabadaasna gaar ay u sheegtay oo dhibaatooyinka ay leedahay oo anaga nafteena aan qirayna inay dhibaato ay leedahay arintaas ku saabsan saaxiibayaal waxaan idin la wadaagaynaa xog ku saabsan in gabadhaasi ay kala tageen ay si rasmi ah ay u shaacisay ayada qudheeda ee tiri waan kala tagnay Ibrahim waxaana arintani maalmahan ugu dambeeyay laga dhageysanayo maxkamadda deegaanka dhagaxley oo arintan kiiskan loo gudbiyay maantana waxay shaaciyeen maxkamadda in ay wiilka iyo gabadha ay kala tageen oo warqadii ay wiilka siiyay gabadha sabab la xiriira arrimo qoys awgeed gabadha run ahaantii sida aad ka dheehan kartiinba muuqaalkaasi si markii loo eego arinta in la furo way ka careysneed oo dhan waliba oo markii si loo fiiriyo marka saaxiibayaal halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkaas aan uga hadlaynay Esther Korlibaax oo kamid ah gabdhaha caanka ka ah baraha bulshada gaar ahaan TikTok-ga
haddii aad nagu cusubto waxaa idin leenahay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada subscribe noo saara share commenti muuqaalkana sii faafi si uu u gaaro meel fog waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم بريان waxaa zaid la isoo weydiiyaa Ibrahim inaan kala tagnay haday lambar noqoto telefoon oo wicitaan iyo haday noqoto message oo yaani comment ahaan la isoo qoraayo Ibrahim waan kala tagnay ani isaga calafkeena intaas ku ekaa halkan cunugu calafkeena ku ekaa waan kala tagnay alxamdulillah waliba aniga umul ayaan kala tagnay ani isaga oo saas ku kala baxnay alxamdulillah binti aan wada joognay alxamdulillah hadaan kala tagnayna waxaan leeyahay waa alxamdulillah wiil walaalkayna adeerkay waa mar kastaba waan kala tagnay Ibrahim mar dambe hal isoo weydiinin inta maqalkayga muuqaalkayga taqaano ima soo weydiin karaan ninkii rabo haraadsada asaga magaalada dhagaxleeda dadka oo yaqaana wixii joogo dadka maqana wixii garanay ha weydiistaan asaga aniga mar dambe la isoo weydiin fadlan yaana la isoo wicin iyadoo Ibrahim la weydiinayo ani Ibrahim waan kala tagnay horeyba ani isaga isku ma aan tolnayn aniga kaligeena la iima gudin ani asaga saasad ogaanaysan asxaabay waa in salaama